Kulankan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa isla markaana hordhac u ahaa Guddiga Farsamo ee Dhismaha Golaha Deegaanka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyagoona kaga arrinsanayay habsami u socodka shaqooyinka horyaalla iyo u adeegidda bulshada ku nool degmada Maadai oo loo dhisayo golo deegaan oo shacabka matalaya. Waxaana shir gudoominayay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudane Nuur Xasan Muuse Nuur Jaake. Ka qaybgalayaasha oo ka socday guddiga ayaa waxay sheegeen in muhiim ay tahay in la ilaaliyo shuruucda u taalla Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle ee ku saabsan in si hufan loogu shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Dowlad Goboleedka Hirshabelle, qaybna ay ka yihiin bulshada ku nool degmada Maadai ee xilligan lagu howlan yahay in loo dhiso golo deegaan oo iyaga ay ku mideysan yihiin. Waxaana sidoo kale Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Xukuumadda Hirshabelle guddiga uu kula dardaarmay in si hufan loogu shaqeeyo bulshada ku nool degmada Maadai, isla markaana dhowaan la filayo in loo dhiso golo deegaan oo ka shaqeeya horumarka bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Maadai iyo weliba xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Warbaahinta Jowhar, degmada Maadai, Shabeellaha Dhexe.